Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xanuun badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay dhibaatada ay leedahay mas'uuliyadda ama in aad qaado mas'uuliyad. Qisadan ayaa waxay dhex martay haweeney maskiin ah iyo saxaabiga weyn Umar bin Khattab. habeenada kamid ah Umar bin Khattab iyo gacanyirihiisii Aslam oo sameynaya kormeer ayaa waxay magaalada Madiina banaankeeda kula kulmeen haweeney maskiin ah oo dab shidanaysa. Caruur yaryarna ay ag fadhiyaan isla markaana gaajo darteed ay la oynayaan. Markaasuu Umar u tagay wuxuu weydiiyay xaaladeeda. Waxay ku tiri waxaan ahay islaan aan lahayn guri iyo ahal kale oo musaafir ah. Caruurtan yar ayaan haystaa, mana haysto wax aan siiyo. Gaajo darteed ayay la oynayaan. Kadib waxay tiri Allah ayaan ku dhaartay haddii Allah isoo bixiyo maalinka qiyaamaha waxaan ku dacweyn doonaa oon agtiisa kula doodi doonaa Umar. haweeneydana ma oga ruuxa la hadlay inuu yahay Umar ayaa ku yiri isaga oo ay laftiisuba ka muuqato daruuf isla markaana labisan mara 14 laga soo kabay. Wuxuu ku yiri adoontii Allay maxaa jiro oo Umar ugala doodi doontaa maalinka qiyaamaha. Waxay tiri maxaa yeelay Umar waa amiirkii muslimiinta, isaga ayaa mas'uul ka ah oo la weydiin doona arimahooda. Markaasuu Umar wuxuu ku yiri yaa ogeysii Umar waxa aad ku sugan tahay saacadan. Waxay tiri wuxuu qaaday mas'uuliyadda muslimiinta, mana iga warqaba miya. Allah ayaan ku dhaartay waan kula doodi doonaa Allah hortiisa maalinta qiyaamaha. Kadib Umar wuxuu gacanta ka soo qabtay gacanyirihiisii Aslam wuxuuna la aaday keedka muslimiinta. Wuxuu furay maqaasinkii raashinka wuxuuna ka soo saaray jawaan raashin ah. Kadib wuxuu ku yiri ruuxii gacanyaraha u ahaa doodka ii saar jawaankan. Gacanyirihiisii ayaa ku yiri aniga ayaa ka qaadayo ee iska daa jawaankan. Umar wuxuu ku yiri ma adiga ayaa iga xambaarayo dambigayga maalinta qiyaamaha, ii saar jawaankan dhabarkayga. Sida ayuu ku soo qaaday Umar wuxuuna u keenay haweeneydii. Balse Umar sidaan ugama soo tagin haweentii ee wuxuu bilaabay inuu u karinayo. Kadib markii uu diyaariyay ayuu u geeyay wuxuuna fariistay meel xoogaa ka fog. Kadib gacanyirihiisii Aslam ayaa ku yiri Umarow inaga keen maadaama aan raashinka u karinay aan gurigeena iska aadno. Umar wuxuu yiri maya, Allah ayaan ku dhaartay ka tagi maayo ilaa aan ka arko in ay dhargeen sidii aan u arkay ayagoo gaajo la oynayo. Qisadan dhab ahaantii waxaa ku sugan cibro iyo waana qaadasho. Ruux waliba oo hayo mas'uuliyad waa inuu ku waansamaa qisadan. Maxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay in ay mas'uuliyadu tahay maalinta qiyaamaha shalayto oo ruuxa uu ka shalayn doono. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha fadlan subscribe dheh gamaleelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.